sheekh wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekh bidaarta haddii la beero si timo loo keeno ama loo soo bixiyo ma sax ba mise waa khalad bidaarta haddaad beeri kartaan iska beerta hal shardi baa shardi ah inaydan idinkoo bidaar le gabdhaha ku sirin oo dumarkaydaan u been guurin baa shardi ah jidhka bini aadamka isbedelada ku dhaca wixii ceeb ee kusoo korodha een asal ahayn haddiiba la hagaajin karo way bannaanta in laga hagaajiyo sooma wixii ceeb ahaan u muuqda wixii ilaahay ku abuuray oo khilqada asalka ah in la bedelo waa xaraan wala amrunhum fala yughayyiruna khalqa Allah midab buu ilaahay ku siiyey inaad bedesho lama ogola ilaahay suuru ku siiyey suuradii inaad bedesho lama ogola sidii ilaahay ku abuuray oo ku siiyey ha bedelin laakiin haddii jirto waxyaalo abuurkii bini aadamka ka yara baxsan oo kusoo kordhay markaasi waa laga daaweyn karaa bidaartaasaa ka mid ah soo ma bidaartaasaa ka mid ah haddiiba la daaweyn karo timo loo soo saari karo waa dhib male bay leeyahay sidaas daradeed baa waxay u qaybiyaan operationada jidhka lagu qurxiyo ilan yani qalliimaa jira jidhka lagu sameeyo oo lagu qurxiyo waxay leeyihin waxa laga qurxinayo hadduu yahay ceeb kusoo korodhay iyo naqsi kusoo kordhay way bannaan tahay hadduu yahay wax asaloo ilaahay ku abuurayna waxay leeyihiin maya sidaa loo daynaya marka dhib male ninkii bidaar leh oo bidaarta iska hagaajinaya way u bannaan tahay